أصحابتا مجدين حبداس أنا على سو ما كلا كعس لبو سدح كنا دارني كي كنا دعم كسيها وعلى قديسان نبى حاس أهان أي جرء أوجد جوكتا أو يسوق من سنة عروتيسة إن أي دكان وناكسن كورينيسو كحسابتن دولار كيكو قاضي كوما دقده دولار كيكو قاضي كوما دقده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام يا خيرت قيمها إيجا مضن مال والبا أو أدونك أتك جوكتان سكة الصوم مقلية موقع ويدين سو جاريو أصحاب القلب والقلوب ولكن عبد الله مع الحسين وأتكود صعوتان channel كان قروح ذا قويس كتشو اسكو نقد أرتو ونكسن ولا ليال ما أنت وحن دونا يا مركلة إن إذن لو ذاقو هوي الصوماليات أنا جو هوي ما بديه كره لكن ما دام عنق لقصو هوس قاضي تايتلكا أي وضتان كو احتراميا لكن هويو أنو ما أنا ندهي لهينه هويو الصوماليات oo gabadheeda oo dhoriyo 10 jir ah aduu 13 jir ilaa 12 jir gabar aan ku qiyaasay baraha bulshada inta soo galisay leh hooyo ninki oo dhaheesa gabadhaas aniga ayaa dhalay waa idinka iibinaya $3,000 qofkii dhiiba waxa waaye waan ka dhisayaa ninkii iyada qabayna xaas ahaan bay guri ugu joogtaayo wuxuu isleeyahay hooyo dhaqan wanaagsan baa guriga ku joogta oo caruurtaadii ku tarbiyadeynaysa maadaama adigu bariiskooda raadintiisa ah ku maqan tahay laakiin Soomaali waxay tiraahdaa laba kala bariday kala warla waa laba qof oo kala bariday nin subaxii intuu shaqo tagay galabkii isagoo daalan imaanaya sariirtiisa isaga dhacaya subaxiina shaqo tagaya iyaduna noocaas bay u dhaqmaysaa halkii la doonayay caruurtii lagu amaaneeyay waajibkuna uu ka saarnaa in baraha bulshada ay ku iibinaysa maanta oo ay leedahay $3,000 qofkii iga siiyay gabadheeda waan ka dhisayaa hooyo nick bal muuqaalka ila daawada ilaahay baa idin kugu dhaariyay asxaabta mujadin xabadaas ana dhalay soo ma kala kacas labo $3,000 ninkii keena dhacaan ku siihaa waa laga dhisaan dollarkii ku qaaday kuma dhiga dheh waxay leedahay xabadaas aniga ayaa dhalay soo ma shidna macnaha soo ma kacsana waa adduun gaboobay waay waa adduun halkii ugu dambeysay aan mareyno waa adduun aanu mareyno maanta halkii hooyada la doonayay inay dhaqankii caruurta hagaajiso iyadii ay leedahay hooyo kaalay oo iswarwareeji ragga hortooda muuqaal iyadu ay ka duubayso gacanteeda kaga duubayso nasiib wanaag maadaama gabadha muuqaalkeeda wajiga aan la arkayn taasa suurto gelisay inaan idin la wadaago laakiin muuqaalkeeda haduu soo jeed ahaan lahaa idin lama aanan wadaagi lahayn waayo xuquuqda qofku ilmaha markuu uu yar yahay aad iyo aad baa loo baahan yahay in loo ilaaliyo waa ilmo mustaqbal leh waa ilmo doonayo xorta adiga aad jeceshahay inaad ku noolaato inuu ku noolaado maadaama marka ay sii jeeday baa sababtay in aan idin la wadaago muuqaalkeeda waa hooyaa lagu leeyahay qofkaas marka nin dhan guri u joogta oo caruur u korinaysa dollarkii ku qaada kuma dhigo $3,000 bay tiri gabadhaas baan ku iibsanayaa qofkii $3,000 ii keena waxa waaye waan ka dhisayaa aabihiina waxa laga yaabaa in uu rafaadayo oo bariis raadintoodii iyo korintoodii uu ku maqan yahay oo ku mashquulsan yahay halkii la rabay waajibkii iyada saarnaa inay gudato bay akhlaaq xumada iyo edeb daradaas iyo weliba laga roonanimadaas ay islaanta Ilaahay baa idin kugu dhaariyay balaha bulshada la dhac fadhiya inta markii laga soo tago inta aanan dhanka hooyooyinka u galin dhalinyaro rag iyo dumar isugu jira baa ku dhiira gelinaya islaanta oo leh keep going ma sha Allah gabar qurux badan baa dhashay gabar sidana dhashay gabar kala jaran baa dhashay gabar waa barihi bulshada waxay marka taasi sababaysaa in hadhow islaantani ay soo duubto gabadhaas oo qaawan bay sababaysaa in baraha bulshada qofka loogu sacabatumo war qofku markuu uu qaldamo oo aad aragto qofkani inuu caruurtii wadada ka leexinayo waajibka inaga saaran wuxuu yahay inaan dhahno hush inaan dhahno canaanano si qofku u xishoodo uusan mar dambe waxyaalaha noocaas oo kale iyo wax la mid ah uusan ula imaan meesha laakiin dad baa dhiira gelinaya oo dhahayo ma sha Allah gabar qalanjaa dhashay gabar qurux badan baa dhashay gabar keerow baa dhashay gabar inta dhashay maba arkaanba gabadha sijeedkeedu bay arkaan bes maahane wajigeedan maba aysan arkin waa lagu dhiiri gelinayaa
taasoo dhow marka waxay sababaysaa gabadhaas iyadoo qaawan inay islaantaasu soo duubto oo baraha bulshada soo dhigto haddiiba ay leedahay gabadheeda $3,000 baan ku raadinayaa inta sii jeeda ay tiri hooy isra ruux isu wareeji ragga hortooda muuqaal ay ka duubayso isla ayadiina ay baraha bulshada soo dhigayso islaantaasi soo kama suurtoodo ilaah baa idinku dhaariyay hadhow iyadoo qaawan gabadha inay soo duubto way ka suurtoodaa soo marka si aanay taa u dhicin biyaha intaysan ku soo gaarin baa la iska moosaaye waa in hush la dhaho la iska qabto ilaan gabadha yarta ah iyadoo waxa laga yaabaa inay waxba u kala soocneen oo dunidan bay ku cusubtahay qofkii la rabay akhlaaqdeeda inay wanaajiso waa ayada awad ayadii baba lunsana maxay wax wanaajisaa waa ma jirto waxaan taa marka ula jeedaa hadda ka hor baa waxa la soo duubay muuqaal aniga run ibaan waxay tama aqaan gabar ayadoo socoto wiil tugtugle ah wiil mooto bajaaj wata suu u fiirinaya la yiri shil buu galay aniga run ibaan waxay tama garanay inuu shil galay inuusan gelin laakiin la yiri gabadha socodkeeda awgeed buu ninkaasi mooto bajaajtiisa shil ugu galay la yiri maxaa dhacday gabadha in lagu dhiiri geliyay oo macnaha la yiri horay u soco saana tahay inta tahay waaw baba maalintii ku xigtay maxay soo duubtay iyadoo jirkeeda garaacayso bacda ku hayso ole waa kana jirkeygii waaye dad badan baa waxay yiraahdeen walaalay barkimaa gashatay inta ka baxday waxayba soo istaagtay iyadoo nooc kala ah iyadoo jirkeeda garaacayso dhehayso waa kana fiiriya saa u qabanayso yaa koosgareeyay in muuqaalka ay soo duubto waa inagan shacabka daawadayaasha ah waxaan ku koosgareynay oon ku sababnay haddii markiiba gabadha haddii laga hortagi lahaa muuqaal kale ma aanay soo duubi lahayn laakiin inagaa ku dhiirigelinay allah waad saanaa tahay nada waa naga barajeesay intaa ka baxday saanaa tahay qalanjaa tahay qaaraleyn anaga waxaan jirkaagii maana barkimaa soo gashatay macnaha waa lagu dhiirigelinayaa inay wax kale soo duubto waxay soo duubtay iyadoo marka la sii jeedo waa la sii dhiirigeliyay gabadha haddana waxay soo duubtay iyadoo soo jeeda haddana oo horaadkeedan aad moodo inay bariis sab ay boobayso saa u caantoobinayso maxaa haddana sii raaciso ay dhahday wariyaa la kulmay gabadhaas wariyii markuu la kulmay su-aaluu weydiiyey markaasay tiri waxaan waa jirkayga caadiga ahaa ayadoo weliba saa isu tutuujinayso oo weliba ay sii raaciso haddana ay dhahday gabar kasto caadi waaye gabar kasto meesha ay ka qurux badan tahay baraha bulshada soo dhigtaa TikTok waa lagu go'ay inaan ka soo wardoono waay bal anigana aan hal mar soo arko kowdhaha waa idinku soo socdaa reer TikTok marka walaalayaal gabadha marka annagaa ku dhiirigelinay in muuqaalada noocaas oo kale iyo kelimadaha noocaas oo kale ay ku hadaaqdo so islaantan nin baa laga yaabaa inuu u dhididayo oo uu aaminsan yahay islaanta isagu uu qabo in ay tahay gabadha ama xaaskiisu inay tahay xaaska ugu wanaagsan xaasaska Soomaaliyeed nin baa iska dhaadhiciyay oo aaminsan qof walba horta wixiisu waa la wanaagsan yihiin laakiin lowla uu ogaan lahaa anigu kulay ma aaminsani aabba raalli uga ah hooyadu inay intay gabadheeda duubto muuqaalkeeda baraha bulshada soo geliso waliba ay lacag ku baayacdo aabba arintaa ogol oo raalli ka ah in uu jiro ka Cabdullaahi ahaan ma aaminsani ilaa ana aabba moogto ma aaminsani laakiin waxa laga yaabaa ninka iyada qaba inuu u heesto xaaskani inay tahay xaaska ugu wanaagsan xaasaska kale ee Soomaaliyeed ugu wanaagsan inay tahay kullu xisbin bima ladayhim farihunti qof walbaaba wixiisa ayaa la wanaagsan waa sax qofka wixiisa inay la wanaagsanaadaan waa wax sax ah laakiin arintan inuu ninka gabadha qaba uu og yahay anigu ma aaminsani ka Cabdullaahi ahaan fitnaduna way ka daran tahay dilka wal fitnatu ashaddu min al qatl bi Ilaahi subhanahu wa ta'ala leeyahay dilka iyo dagaalka iyo aafada waa ay ka daran tahay fitnadu inta ay cusub tahay haddaan gabadha noocaas oo kale ah hush la dhihin oo laga qaban waxay soo duubi doontaa gabadheeda oo hadhow qaawan ama gabadheeda oo hadhow ninu uu la joogo suga gordhow waa imaan doontaa soo marka Ilaahi subhanahu wa ta'ala caruurta hanoo islaaxiyo hanoo hagaajiyo gabadhaas waxaan aaminsanahay in ay Soomaaliya joogto Soomaaliya inay joogtaa u maleeyaa dadkii qurbuhu caruurtoodii bay dhaqan xumo wadamada ay joogaan ka jirto oo la soo cararayaan xaggan Afrika oo ay leeyihiin caruurtii baana laga haleenayaayo
dhaqan wanaagsan dhaqankiisu banaa ee Soomaaliyeed ee diinta Islaamka baan caruurtanadii la raadsanayna bay dadu taagan yihiin daduna meeshii ay ku dhasheen oo macaaneed dhaqankoodii lahjadoodii Soomaaliga ahayd ee macaaneed diintoodii iyo akhlaaqdoodii wanaagsaneed iyagoo ku dhex jira bay nooca u dhaqmayaan ka qurbaha ku soo halaabay ee dhaqan celinta Soomaaliya loo keenay markuu noocyada arko muxuu aaminayaa ismaana weydiin waxa uu aaminayo laakiin waxa uu aaminayo waxay tahay xagga inay tan ka daran tahay oo meeshii ugu fiicneed la keenay buu qofku aaminayaa ilaahay awlaadaha inoo wanaajiyo wanaaga iyo islaaxida awlaadana kaalinta ugu muhiimsan waxa ka ciyaara labada waalid siiba hooyooyinka doorka ugu wanaagsan akhlaaqda caruurta waxa ka ciyaara waa hooyooyinka ka ciyaara macnaha waxaan uga jeedaa guta oo waajibaadkoodii ka soo baxa doorka ugu muhiimsan waxa looga baahan yahay maadaama labada waalid ba looga baahan yahay laakiin aabuhu maadaama guriga uusan joogin oo banaankii u shaqo tagayo uu qof soo shaqeeyay caruurtii bariiskooda uu raadinayo qofkii la rabay inuu guriga ka dhiso oo macnaha waxa weeyaan caruurtii isku dabarido oo dhaqankooda hagaajiyo oo xilliga iskuulka diyaariyo xilliga iimaanayaan ogaado waxa ay qabanayaan la socda inta badan waa hooyooyinka haddii marka hooyadii waajibaadka inta la egsaarnaa ay nooca u dhaqmayso maxaa la sugayaa waa ma jirto ilaahay hooyadaas gabadhaas Soomaaliyeed ee yar ee wax magaratada ah nooca ula dhaqantay ee waliba doonaysa ceebaha gabadheeda in baraha bulshada ay ku faafiso oo bulsho kale oo Soomaaliyeed la wadaagto doonaysa ilaahay ha soo hadeeyo ma habaari karnaa ilaahay ha soo hadeeyo oo ha tuso wanaaga awlaadu ay leedahay daduna intaasoo dhaqaatiir ah bay u marayaan oo ay leeyihiin mar uun ma la yiraahdo calooshaada ilma galeen haba ka soo dilma haduu doonay dad baa halka taagan iyadina ilmihii ilaahay ku arsaaqay baa intay tiraado soo istaag hooyo dabada warwareeji video inta ka duubto oo waliba baayacaysa oo leedahay $3,000 baan rabaa gabadhaas aniga dhalay ninkii siiyay $3,000 gabadha yar waan ka dhisayaa wal ciyaad billah waraad baa u mahadsantihiin inta ka badan ma sii hadli karee xilli aad u kulul baan ku jirnaa intaan muuqaal kala mid dib isugu soo laaban doono waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.